mayba geeka magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bayka qabsoomay shirkii toddobaadlaga iyo onso kooy jareen xubno galo wasiirada dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya maybana shirka geeka shir gudoomiyaha madaxweynaha dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdulcasiis Xasan Maxamed Laftagareen sidii caadadaha ay mayba shirka kulanka galo wasiirada leen ku dhageystay warbixina xubno ku tirsan wasiirada Koonfur Galbeed Soomaaliya oo kumid ahayeen wasiirka wasaaradda arrimo gudaha dawladda hoose dib u heshiisiinta ee Koonfur Galbeed Soomaaliya wasiirka amniga ayo mudooyinkii ka dambeey iyo safarka saadaan degmada Bardaale ee gobolka Baay shirka markii uu sahay ilaa adiyay bas xaafadan ku warbiyay walyaabo leen ku dawahay shirka wasiirka wasaaradda arrimo gudaha ee dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Maxamed Abuukar sida warbixintan siinkaasi degmada Bardaale way ku jiray xoogaa isqabqabsiga silan adkaaye dhinaca amniga maadaama hata dawladda Koonfur Galbeed aan qorsheysanto dhammaan degmooyinka nimay la raay maralaseeda dhamaantoona la ogaado xaaladda iyo amniga dhinaca bulshada markan may la raay qayb kumid ah hay'ad adkeynta amniga iyo security silan adkay lahay in isbedel lagu sameeyo dhinaca taliyaashii hore shaqay jiray maadaama shaqooyin soo gudwaayeen in isbedel taliyaashaas laga sameeyo markan taliyaal cusub la magacaabay si oo may la raay dhinaca howlihii amniga lan adkay lahay deegaamada xoreyn cusub lagu bilaabo lahay ما كاس هذا كل قرشة هذا كمجرو كل مركي كوينا ديبان كشيء قدام ما إلا هاي كل صحافة إسبدل هذي كويسين ولا صعد دونتا لكن هتوال قرشة هتدي أرسنال له هو ما إلا هاي مامور كان لك بدل كاس لك صعد دون كل وزارة لوكسوق دون إيو ما إلا هاي مامور كمان تيسار تضبط والبقيك أكله ما يبقى كلنا سكوي حمنا قلوا وزارة كفر قلبت Soomaaliya أيام كهذا العيان حالد والبأمر كاسي كتيجن قبل ذا كفر قلبت Soomaaliya